السلام عليكم كسو دوادا مودن سومالي فود فضلا هدا channelkayga ku cusub tahay subscribe ii saar maanta suuqa ayaan ku maqnaa markaan waxaan rabaa inaan idin la wadaago cunto aad u fudud ama casho fudud oon waqti badan kaa qaadanaynin cashadana waxay ka kooban tahay waa digaag aan soo jarjaray chicken breast sidoo kale hal xabo oo barbarooni ah hal xabo oo baradho ah waxa aan kaloon ku darayaa hal xabo oo tamaandho ah tamaandho ayaan soo jarjaray xabad weyn weeyaan aniga laba xabo ayaad ka dhigan kartaa sidoo kale hal xabo oo basal ah waa nooca waaweyn ayaan iyadana isticmaalayaa milqaacad curry powder ah in yar oo milqaacad badhkeeda ama milqaacadda yare tiiga ah oo organic huruud ah iyo milix intaasoo kaliya ayaan caawa sameynayaa cashadeena say soo baxdana insha allah waan idinla wadaagi doonaa la socod wanaagsan imika waxaan sameynayaa cuntadaydii ayaan wada shiilayaa intii ingredient aan idinla wadaagay umaan isku wada dardarayaa hadduu ilaahay idhaahdo waanaan isku wada shiilayaa dabka waxaad sameynaysaa waad ka gaabinaysaa si cuntadaadu si fiican ugu bislaato uuna digaagu qayrinkaaga noqonin barbarooniga iyo tamaandhada daa'iman waxaan sameeyaa anigu marka ugu dambeysa ayaan ku daraa maadaama dab badan ayna u baahneen oo marka horeba iyadoo vegetable iska bisil ay tahay cuntaday sidan ayay soo baxday marka waxaan go'aansaday inaan sandwich ka dhigo oo roodhi ku guro roodhi diyaar ah oo soo iibiyo ayaan ku gurayaa maasha Allah tabaaraka raxmaan kaliyaas waxaad u baahan tahay inaad cabitaan samaysato ama mid natural oo shiidanayso ama mid guriga ku yaala haddii uu muuqaalkani ku cajabiyey fadlan subscribe channelkayga saar like-na fiidowgan ii saar asxaabtana la sii share garee waxaan rajeynayaa inaad si fiican uga faa'iidaysatay fiidowyo badan oo kalena insha Allah waan idinla wadaagayaa qaar vlogs ah qaar cleaning routine ah daily routine motivation insha Allah iyo cooking saad horeba iga barateen waanaad ku mahadsantihiin intaan fiideo kale ku kulmi doono waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu allahuma baarik lana fiima rasaqtana waqina cadaaba annaar